السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa farqiga u dhaxeeya can iyo may. What is the difference between can and may? muxuu yahay farqiga u dhaxeeya can iyo may? Haddaan baranaynaa. Okay. Use may for permission. Use may for permission. May waxaa loo isticmaalaa ogolaansho ama fasax. Ogolaansho ama fasax qaadasho. Okay. Kanna waxaa loo isticmaalaa for ability. Awooda loo isticmaalaa. Ama awood sheegasho. Okay. Tusaalooyinka aan aragno marka examples. May tusaale may I come in please? May I come in please? Masoo geli karaa fadlan? Masoo geli karaa. May marka hadda waxaa waaye tusaale waxaa laga wadaa oo kale am I permitted to come? Am I permitted to come? Ma la ii ogol yahay inaan soo galo? Ma la ii ogol yahay inaan soo galo? Fasax ma uu qabaa inaan soo galo? fasax ma uu qabaa inaan soo galo? Yani may hadda waxaa waaye waxay ku tusinaysaa marka a little bit waxa uu qarsoon just respect xishmada ku jirto xoogaa qofka waxaad weydiisanaysaa inaad fasax ka qaadato fasax ka qaadasho waxaan soo sheegnay kowdii waxaan dhaanay may waxa loo isticmaalaa for permission ogolaansho ama fasax qaadasho marka waxaad leedahay qofkan ma soo geli karaa marka aad leedahay may I come in please marka aad leedahay waxaad ka qaadanaysaa marka fasaxaad ka qaadanaysaa si xishmad leh am I permitted to come ma la ii ogol yahay ama fasax ma uu qabaa inaan soo galo okay waa fahnay aan aragna marka can I come in ma soo geli karaa yani waxaa la socda xoogaa xishmadna kuma jirto meeshan fiiriya without respect why can I come in ma soo geli karaa am I able to come am I able awood ma u leeyahay inaan soo galo am I able to come yani luqadda aad adeegsanaysa waxaa waaye waa strong words can I come in fiiriya may I come in please iyo can I come in please can I come in يعني you're just using you know ability waxaad isticmaalaysaa hadda awoodaad isticmaalaysaa can I come in yani qof awood leh oo kale ereygana kana marka hadda respect kuma jiro xushmad kuma jiro marka am I able to come awood ma u leeyahay inaan soo galo yani waxaad adeegsanaysaa hadda karti iyo awood inaad soo gali karto inaad xoog aad ku soo gali karto ayaad adeegsanaysaa hadda can okay marka waxaa fiican in la adeegsado may ayaa wanaagsan in la adeegsado markaad mail aad galayso oo kale ama markaad qof codsi permission aad weydiisanayso oo kale waxaa wanaagsan in mail isticmaalo both waad isticmaali kartaa laakiin waxaa muhiim ah aad u wanaagsan in la isticmaalo may okay marka waxaan filayaa in la fahmay the difference between can iyo may okay please ilowin inaad subscribe gasto channelka si aad mar walba aad ula socoto casharada mar walba aan soo geliyo insha Allah isma dhaafin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh